waxaan u sheegayaa faniskayga friendskayga familykayga iyo qof kasta oo fankayga taageero meel kasta oo adduunka ka jooga horta waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin waan idin salaamay baan idin leeyahay salaanka bacdi waxaan ogeysiinayaa faniskayga dadka fankayga taageera ee ku nool goboladan dhexe gaar ahaan galmudug waxaan ogeysiinayaa inaan go'aan ku gaaray anigoo meelo badan ay ahayd inaan aado inaan waqti qurux badan aan la qaato oo aan ciidda aan ka tumo cadaado iyo gaalkacyo waxaan kala ogeysiinayaa dad baa xoogaa isku yaro qalday habeenka koowaad ma gaalkacya habeenka koowaad ma cadaada waxaan ogeysiinayaa dadka xiiseeya fankayga iyo qofkii uu shaki uga jiraba inaan habeenka koowaad inaan ka dhigaya cadaado oo maanta kale markii la ciidayo maalinta koowaad maalinta labaadna aan ka dhigi doono gaalkacyo hadduu ilaahay idmo waxaa igala qaybgelaya xidigaha waa beri galmudug waa beri dhalinyarada weli gabdha isugu jiro ee sanadkan dambena la holin waayey markii heesaha aad soo bandhigi doontaa maxay noqon doonaan heesaha aan soo bandhigi doono horta sida aniga la iga bartay caadadeedu ay ahayd waxaan ku horumarsiinayaa heesaha cusub mar walbeeto hadday sanad cusub tahay hadday ciid tahay waxaan jeclahay sanad kasta inaan horta la wadaago maaragtay dadweynahayga fanka xiiseeya inaan heeso cusub horta aan u soo bandhigo heesaha cusub waa number 1 waxaan kaleeto habeenka insha Allah aan soo bandhigi doonaa heesahayga horeeto heesahayga dhaxayto iyo kuwa hadda ugu dambeeyay iyo kuwa cusub wada weli maqlinayna runtii waxa igu dhaliyay inaan galmudug aan maaragtay aan ka qabto barnaamij waa su'aal aad u fiican bad weydiisay wariye laakiin waxa igu dhaliyay nabadda iyo quruxda iyo raynta iyo waxa aan arkay ilaa hadda waa la yaabanahay war waxa la igu haya maxaa meesha ku haya hadda waad ka garan kadhaa maxaa igu haynay waxa igu haya nabadda sidaas la ajliga dadku say isku dhaxgaliyaan iyo quruxda ka muuqata ayaan runtii waana markii ugu horeysay sidaan uga tagay anoo 12 jir aan dalka uga baxay hal mar oo xamar imaaday 2013 wax yar aan joogay oo aan soo gaarin goboladan marka waa markii ugu horeysay oo gobolada dhaxaan imaado runtii waxa igu kaliftay inaan ka dhigo anoo dadkayga aad u jecel oo dadkayga iyo dalkayga u daneynayo haddana nabadda ka jirta iyo quruxdeeda taas ayaa saaxiib igu qasabtay inaan show ka dhigo runtii waxaan ugu baaqayaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan inay dalkooda ay ku soo noqdaan oo barnaamij ka dhigaan oo ay meel walba tagaan hadda anigu waa markii ugu horeysay hadda halkan ka dhigayo laakiin waan baxaya waan soo noqonayaa gobollo badan ayaan gaari doonaa meelo badan ayaan insha Allah wax ka dhigi doonaa marka waxaan leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta adduunka kaga nool yihiin ka ugu yar iyo ka ugu weynba waxaan leeyahay ku soo noqdo wadankeena noo baahan dalkeena noo baahan markaan wadankeena iyo dalkeena aan quruxsano ayaan meel kale u talaabi karnaa marka waxaan leeyahay see you guys I love you so much